ilaa iyo shalay balaha bulshada Soomaalida waxaa si weyn looga hadalhayay weerar lagu dhaawacay wiil dhalinyaro ah oo caan ka ah baraha bulshada oo lagu magacaabo Bilaal Bulshaawi. wiilkaasi oo la weeraray isagoo fadhiya meel maqaayad ah oo shaaha lagu cabo oo ku taala nawaaxiga isgoyska Banaadir ayaa waxaa la dhaawacay wiil kale. wariyahana VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray. xaaladda caafimaad ee Cabdiqaadir Cali Maxamuud oo loo yaqaan Bilaal Bulshaawi kana mid ahaa dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada gaar ahaan TikTok ayaa xilligan mid ka soo reynaysa sida fiyoda u sheegeen ehelada Bilaal Bulshaawi qaarkood. saraakiisha caafimaadka gacanta ku haysay ehelada ayaa laga soo xogteen xaaladda caafimaad ee Bilaal Bulshaawi taa mid hagaagaysa marka loo eego dhaawac xal ka soo gaara weerar hubeysan oo lagu qaaday xilli uu ku sugnaa maqaaxi ku taala isgoyska Banaadir. Bilaal Bulshaawi oo ka mid ah dhalinyarada sida weyn looga yaqaan baraha bulshada gaar ahaan TikTok ayaa lagu dhaawacay maqaaxi ku taala isgoyska Banaadir isaga iyo qof saaxiibkiisa oo xilligaas wada joogeen. dowladda Soomaaliya tafaasiil ka maysan bixin waxaase ehelada oo maanta la hadla warbaahinta ay sheegeen in xaaladda caafimaad ee Bilaal Bulshaawi ay mid soo hagaagaysa marka loo eego dhaawac ka soo gaaray qaybaha sare jirkiisa xaaladiisuna ay tahay mid wanaagsan. walaalkiis Muqdiin Cali Maxamuud ayaa la hadlay warbaahinta maanta isagoo tafaasiil ka bixiyay xaaladda caafimaad ee Bilaal. ilaahay maad iskale Cabdiqaadir Cali Maxamuud oo Bilaal Bulshaawi ku magac dheer walaalkay xaaladiisa okay waaye sidii xalay ahayd wuxuu ku soo kordhin xaaladiisa waa alxamdulillah sidii wax u gaareen iyo ilaahay ayaa u yeeshay ummadda Soomaaliyeed ducadeeda iyo ummadda Soomaaliyeed oo asiga waqtigiisa iyo qoyskiisa ugu soo go'ay gargaarka uu fidi jiray ayuu ku badbaaday marka alxamdulillah waxa sheegnaa waa dilay hadda xaaladiisa ka warman hadda aan kula hadlayo xaaladiisa waa okay oo sheekeynaya qof caadi waa laakiin dhaqaatiirta hadalka u ogoleen maxay yeelay xabada inta ka baxday marka waxa la diidayaa inuu hadalka badanaa loo diidan yahay laakiin xaaladiisa ma sha Allah waaye waan u tagi kartaan waa soo arki kartaan sidii kana ka warbixin kara insha Allah taala nin dhalinyaro oo isheego dadkiisu caawiyo ganacsiga qad markii dambe iska ganacsi magaalkiisa iska joogo iska aha oo waxbarashada hadda oo isheegeen wado alxamdulillah hadda laakiin waxa geysay ma sheegi karno Allah maayo waa hadda waxa ogaa ma jira laakiin laabaha amniga wixii warbixina amniga u shaqeysay ayaga laga suuga magaaladan dad amnigooda maamulo wax anaga shaqo aan ku leenahay ma lahan anaga dadka dhibaatada soo gaartaanahay laakiin hadda wixii gaaray alxamdulillah leenahay qadar waaye wax u qornayna ahaayeen waxa ka bedeli karnaa ma Muqdiin oo la weydiiyay cid dhaawac u geysatay walaalkiisa ayaa faahfaahin ka bixin wuxuu sheegay in lagu dhaawacay maqaaxi uu ku sugnaa Bilaal ka hor inta weerarka lagu soo qaadin oo ku taala Muqdisho gaar ahaan isgoyska Banaadir meel aan ka fogeyn. wallahi Cabdiqaadir Cali Maxamuud walaalkay waxa uu geystay horta Allahu a'lam eriido ku sugnaay waa degmada Hodan soona Banaadir maqaayad ku taalo nin dhalinyaro ah oo bulshadiisa u shaqeeyo waaye aad u daayir yahay sida ka muuqato inkastoo lafta iska buuda laakiin waa nin dhalinyaro hammi fiican leh ka dheereeyo isheegeen heerka uu taagan yahay oo dadkiisu wax u qabtaa qof ku dhiiraday inuu bulshadiisa u adeego adu ma lehen inta ogaay mar walba anaa ka warhaayay. saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya ayaana tafaasiil ka bixin weerarka lagu dhaawacay wiilkan dhalinyarada sida weyn looga yaqaan baraha bulshada gaar ahaan TikTok ee Bilaal Bulshaawi. Muqdishona maalmihii la soo dhaafo waxaa ka dhacay dil qorshaysan sidoo kale waxay ahayd toddobaad ka hor markii al-shabaab weerar ku ekeeyeen hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho.